waxaa la ii sheegaya ingiriiskan ma qisas beena run qisa waaxidaan kuu sheegaya waxaa la ii sheegaya inuu nin gurigii ka tegey islaantii buu yimi waxay u yaro hanjabto waxay tidhi haddaad mar dambe haddaad baalkaa noqoto soo hoyan maysid isagoo hanjabaadii qaba bay tidhi waa kan laydhku baktiya ingiriiska bahlada yar la soo iibsadee ordo reerka u soo iibiyaan korontada yaradee dabka la gelinayay meeshii qaadkunbuu yaro marunoo in yar ka gaadhsii buu is yidhi wuu fadhiistay carruurtiisi iyo wixii oo dhan wuu ilaaway islaantii gurigaa ku madoobaaday meeshii waa isla basbeeshay islaantii waxay garatay inuu dakii marqaan tagay aanu u soo soconina waa iska baxday nalkeedii bay soo iibsatay 11 habeenimo soo baxay baa la yidhi oo xasuustay inuu reerka ka yimi meeshii dabeetana 11 habeenimo soo cararay gurigii uu horiyay ingiriiska ku daafadan la tuuray bacmado inta lagu gura meesha la hordhiga uu soo tagay lawan waalane markuu arkay wuxuu isii wallahi wa ta'ala taadi dibadda lagu dhigay baadi xashiishka islaamtu soo tuurtay ayuu qaatay iyo tuurtu ku ritay waa iska tagay waa qisa dhaba ma aha tuurtu ku ritay oo socday gurigii hooyadii buu tagay kabadhku furay meel buu ku cabaystay waa xidhayo habeenkii iska seexay maalmo gurigii joog in yar markii gurigii la joogay ba islaantii guriga lahayd way yaabtay war gurigii waxaan ka uraya waa guri xafaayada lagu xidhay kabarka la geliyay gurigii waxaan ka uraya maxaa ka akhiran islaantii unba meeshii furtay baadii bay dabool ka rogtay baada waxa faa'iido carruurta ku jira markay islaantii aragtay tiri war waa maxay waxaan baad ku seetay ee waa alaabteedii halka dhig waar alaabtaa jabtay waa maxay waxaan baa leeyahay waa soo dhaqaaqo uu arkay ninkan waalida ku jirta wax kale ma xasuusan wallahi leen leeyma eriin buu yiri islaantu baadii kaga cararay ma xasuusan xataa inuu ka qaado ana min alwaalid runti haddaan siraahdo uun muhaadara ka dhig inta qisay waliba rasmiya la sheegay takfiikum inuu waxa kani aanu ahayn wax qof miyir qaba oo isticmaali karo على كل حال كما ورما يقاف يعني سوشيالي محو دبا dhaqaale muxuu dhibaa dadnimo muxuu geystaa caafimaad muxuu yeelaa laakiin waxaan tilmaamaya waxa weeyaan war waa daraga kamid ah laakiin waxa koowaad aynu u baahanay waxa weeyaan war macluumada waxaan inuu darag iyo inuu dadka gaarsiino balkii cunayaana isagoo darag u garanaya cuno ilaa inuu isagoo u weesaysanayo cunaya laakiin ha gartay inuu kookayinta waxaan la weesaysanaya ama kookayintiisa markaa ha weesaystaa ma iska daayo laakiin inaynu gaarsiino mujtamaceena waxaan inuu darag yahay daragnimadiisuna ay caddahay aanay muran u baahnayn ee scientifically la proof gareynay inuu darag caadi yahay kaasina inay tahay daragaasi maanta ka qoran dunida oo dhan ama dunida qaybo badan oo kamid ah ka qoran maxay drug number 1 ay ku qorantay idan waxaynu u baahanay bulshadeena inaynu waxa kan geedkani wuxuu yahay Soomaali wari may baranayna inuu baro wallahu a'lam billahi tawfiq